dadka iyakuna naftoodiina wareeriyey anigana igu wareeriyey aasiya tallaabooyinkan isbeddelka fiican keenayo dhan waan qaada wax natiijo ana kama hayo maxaa khaldan wax kasta sameeyey dadkii qaar waxay ku oran waaban isugu taaglaahay tallaabooyinkan aad sheegaysid inaan qaadon ka dhabeeyo okay haddaan qaadona natiijo ma hayo xagee wax ka khaldan yihiin videogii hore aynu kaga hadlaynay noloshaadana saa uu inqilaabo afgembi ku samee habeen iyo maalin gudahoodo weji cusub samee qaybtiisii labaad weeyaan ee ka hadlaysay sababtaad uga midho dhalin kari la'dahay tallaabooyinka insha allah okay so haddaad rabtiin aad ogaatay sirtaa aad uga midho dhalin kari la'dahay guushii aad raadinaysay soo xaadir welcome to Asiya's TV show. Okay, waxaanu dhamaystirayna topicii videogii u dambeeyay ee aan duubay markuu videoga dhamaanayna meeshan aan idin soo dhigi dadkii aan daawanin. Waayahay guys, dhibaato weyn ayaa dadkii haysataa. Dhibaatadu waxay ka haysataa sidaan xagga hore idinka sheegay natiijadii baa la la'yahay. Tabcay tallaabooyinkii qaaday ku dhaqmay arrimihii aad sheegaysay oo dhan natiijo ma hayo marka halkii wax ka xun yihiin ma tallaabooyinkan aan qaadiyan shaqaynayn maanigiiba si khaldan waxaan u samaynaya noloshaydu waxaan rabaa inaan weji cusub sameeyo isbeddel weyn sameeyo qofaan qofkii ahayn baan rabaa inaan noqdo waan ka daalay qofkan hore aan ahaan jiray waan nacay qofkan hore dhibaatooyin fara badan buu qofkaasi ii sababay qof cusub baan rabaa inaan noqdo noloshayda inta ka hadhay maxaan sameeyaa fiidiyooyin badan waan idinkula wadaagay tallaabooyinka kala duwan ee aad u samayn karaysid arrinka laakiin dadkii qaar ba natiijo la dadna natiijo way gaadheen qaarna way la'yihiin waxaynu la hadlaynaa kuwa natiijadii la maanta waayahay say caadadu ahayd waa laydin xasuusinaya liketa ku dhufta guys liketa waa muhiim adigana lacag kuguma joogto waxay kugu joogtaa keliya fartaada yar oo aad ku noqotid deeqsi ama deeqsiyad mala bakhayleysa farta yar ila ma aha okay nasabnimada ma aha ku dhufta liketa kulligiin saad u dhantihiin insha allah dhac ku siiya haddadaan idinla hadlayo si aan idinu ilaabin okay sirtu maxay tahay sirtii oo aan idiin soo koobay waxa weeyaan sababta aad haddaad qaado tallaabooyinkii isbeddelka keenayay natiijo ka heli weyday adoo qaaday maxay sababtu tahay sababtu waxa weeyaan wixii aad beddelaysay ayaana dilin oo aan dhimanin oo weli nool hadal weyn oo culus weeyaan soo maaha jijabiyaa si ay jilci waayahay macnuhu waxa weeyaan dadka ila soo xidhiidha dadkan la shaqeeyo dad waa qaar raba inay dabeecaddoodii beddelaan oo dabeecaddoodii hore khasaare fara badan kala kulmay yacni shakhsiyaddooda ahayd daciif ama lacagta si xun u maamuli jiray oo ay farahooda uga bixi jirto markasta soo taagnaan zero dad waxay noqdeen qaar balwado raba inay iska joojiyaan oo balwaddii ka hadho qaar waxay noqdeen qaar raba inay dabeecad cusub samaystaan oo shakhsiyad cusub dhistaan oo adag oo dee kalsooni fara badan leh marka mushkiladuhu way kala duwanaayeen okay laakiin mushkiladahaasoo dhan dadkii aan kala shaqeeyey iyo kuwa imaqlayaan aan kala shaqaynin ee mushkiladahaasi haystaan ee raba inay wax ka beddelaan wax alla si kastoo aad u qaado tallaabooyinkan ku baro ama adduunyada ku barto si aad waxa uga gudubto si kastoo aad u qaado tallaabooyinkaasi guul ma keenayaan oo ma dhalayaan guul haddii aan waxaan la beddelayay horta xabaal lagu ridin waxaan waa inuu dhinto meaning haddaad rabti inaad qof cusub noqotid waxa weeye qofkii horead ahaan jirtay inuu dhinto qofkii cusbaayaad rabtay inaad noqotona dhasho
isweydaarkaasa loo baahan yahay psychologically waxa loo baahan yahay kala wareega wax cusub oo yimaada meeshii ma jirto haddaan wixii hore dhimanin dhimashada ma laga hadlayo nafta iska qaado isdildalo isdil laguma odhan ilaa haddaa isdisho dib usoo dhalan mayside waa ka rawaxaysa ma fahamtay one way ticket baad qaadanaysa ilaa aakhiro iyo weliba dembi weyn kaa kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa macnawiyan carabiga waxaa la yidhaha macnawiyan yacni macnawiyan af soomaaliga maxay noqonaysaa ma garanayo bal waan yaro sharsharaxi okay waayahay mid baan kasoo qaadaynaa tusaaleynu kasoo qaadanayna mid okay tabalwad oo kale because waa halkan dhow iyadiyo wax fara badan baad halkaa ka fahmaysaan balwaddii muddo dheer baad ku jirtay soo maaha okay si aad u joojisayba waa joojisay completely waa joojisay qofkaas waa maxay waa qof ku guulaystay kumanaad noqonin dibna umaad soo eegin manaad yara turunturoonin saasaad u gowracday aabaheed cunto xabaal baad u qoday waad ku riday waad ku aastay horaad u socotay dib dambe laguguma maqal 5 sano iyo 10 sano iyo 20 sano kula maraysa aad tahay nadiif bilaa balwad qofkaasi waa qof guul ka gaadhay tallaabooyinkii la baray ee la yidhi raac okay oo hal mar ka takhalusay dhibaatadii okay waa ka waayahay qofka istaba yara jiijiidaye ku guulaysan waaye tallaabooyinkii lagaga soo kabanayay balwadda ama lagu joojinayo waa maxay qofkaynu ka hadlaynaanu leenahay maad xabaalin qofkaad ahaan jirtay waa ayo waa qof balwaddii uu lahaan jiray marba turunturoonayo ku yaro noqonaya in yar waan yaro sigaar baaba joojinaysa okay 10 cishood adoo aan sigaar cabin baad maalin is odhanaysa waan ka adkaado waan joojiyo waxba xabad kaliyaan asxaabtay la cabaya haddana haye dhowr cishaa joojinaysa haddana waad ku yaro noqonaysa haddana waa adiganoo naftaadii baad been u sheegaysaayo tii hore balwadda taqaani waa adigana weli isdaba jiidaya adigii kamaad takhalusan iskamaad reebin been baad naftaada ku maaweelinaysaa okay been ayaad naftaada ku maaweelinaysa iskamaad reebin waad jiidanaysaa taasi waa tabalwadda example kan mushkilado fara badan ayaad gelgelin karaysaan tusaale kaloo labaad degdeg aan idin siinaya qof wuxuu ahaa qof mushkilad miisaan ka cabanaya muddo dheer okay qofka waan la taliyey waan la shaqeeyey tallaabooyinka horta miisaankiisa waxa ku keenay iyo waxyaabaha lifestyle-ku ku nool yahay waxa sababaya because miisaanka waxa sababi kara cunto badni waxa sababi kara stress waxa sababi kara hormonaadkaaga iyo khalkhalay waxa sababi kara waxood ba sababi kara okay markaynu identify garaynaynu ogaanay waxa kugu keenaya miisaankan ku koraya aynu garanay mushkiladii aan farta saarnay waxaan kuu sameeyay program aad ku noolaatid okay od miisaanka ku ridid okay programkii waad raacday laakiin haddana weli miisaanka uu kaa dhici laayahay marka maxaa dhici karaya waxa dhici karta sababihii keenay miisaanka markii horeba in qaarna aad reebtay qaarna aanad reebin tusaale maxay noqonaysaa programkan kuu sameeyay wuxuu weeyaan jimicsi u gaara da'daada aad maraysid iyo haddaad nin tahay haddaad gabar tahay because da'da la marayo exercises way kala duwanaanayaan okay xaydhu halkay kaa hayso jimicsigeedu wuu kala duwanaanayaa program exercise aan kuu sameeyey program cunto aad raacaysid baan kuu sameeyey program hurdo aan kuu sameeyey program hormoneskaagii aad ku balance garanaysid baan kuu waa adduun baan isugu kaa dubariyey waxaasan ku oriyoo dhan haddaanad meeshii keenin miisaankani ma dhacayo miisaanku kuma dhacoon gaajans ku dilaya diet baan samaynaya no miisaanka hadday keenayeen hormoneskaagiyo khalkhalay ama cortisolkiiyo kugu fara badan iyo habeenkii aanad seexanayn dee cuntadan waxba farqi ma samaynayso so programka dhan waa inaad raacdo waayo miisaanka uu kaa dhici waayo maxaa khaldan waxaa laga yaaba programkii qaybna waad samaynaysa qaybna ma samaynaysid waxaa laga yaaba cuntadii waad hagaajisay exercisekiina waad samaynaysaa waanad yaabantay miisaankii buu iga dhici laayahay cuntadii iyo exercisekiiba bartoodii baan dhigaada ii sheegtay waxaa laga yaabaa hurdo fiican ma seexatid okay oo jirkaagii waqtiguu iscusboonaysiin lahaa uu iskala wada bedeli lahaa ee salas cusub dhismi lahaayeen hormonesku hagaagi lahaayeen waa xilliga hurdada ma seexatid baa laga yaaba dhafar baa ku haya waxaa laga yaabaa allahu mustacaan
hormone stress inuu ku hayo oo stresskii aan qaybtii stresska aanad waxba ka qaban hurdo la-aantuna stress bay keentaa okay markaa guys waxa weeyaan mushkilad baa ay haysataa waddadii baa cagta la ii saaray aan mushkiladda xal ugu heli lahaa natiijaan waayey ma soconayso idinka socon mayso laydinka aqbali maayo natiijo waxaad u weyday waxbaa khaldan hoosu eeg barnaamijkaagii oo dhammaystiran miyaanad raacin miyaad shiid garanaysaa khiyaamaad wadaayo adigiiba hoosta wax ka yara xadxadaya cuntadiioo kale waxaan ku wari haddaad doontid hoostaad ka xadxadaysaa iyo wad qarsanaysa waxyaabaha jeceshahay haddana waxaad leedahay diet baan ku jiraayo program baan wadaayo waa kana waa ker markaa guys xaqiiqatan haddaanad naftaada nuxurka dhani fideogani waxa weeyaan haddaad isbeddel rabto waa inaad waddada isbeddelka cagtaad u saartid si daacada looma baahnaa dhacdhac waa inaad daacad ka ahaatid mushkiladdii halkaasaad kaga tegaysaa bahid cunto okay waa sii xabaalaysaa halkaa markaad kasoo dhaqaaqdo iyadii meydkeedeed kasoo kacdo guushiina halkaasay taalla waddadaa intaad soo socoto ha keenin dhacdhac iyo khiyaamo okay markaad waddadaa soo dhammaysaad guushii gacanta ku dhigto aad natiijadii aad rabtay aad gaadho saasaad kusii wadaysa noloshaada inta ka hadhay okay maaha waddadii daacad baan usoo raaco wixii layga baahnaayo dhameeshii waan keeno natiijadiina gacantan ku dhigo waatano waan haya haddaan miisaan iska ridayay saiskan rabay baan gaadhi haddii balwad ay tahay waan isdaynay waxay doonto ha noqoto waa inaad sii wado hadhowto maaha markaad natiijadii gaadho haddana hadhowto xagga dambe dhacdhac ka keentid okay waad fahamtay marka bini aadamku isagaa iskhiyaameeya ma jiro programka wuu shaqayn waaye program saxa haddii lagu sameeyo wuu shaqayn waaye ma soconayso in badan program khaladaa lagu samaynaya oo qofkii kula shaqaynaya aqoon fiican waxan uma laha okay marka guys waa tusaale yareero basiidaan idin siiyey sababaha aan keenin guushaada inaad gaadho okay mushkiladihiina kala duduwan waddadaasun u raaca waa fahamteen waddadaan idin tusay been baad nafta u sheegaysaa wixii aad ka cararaysay maad iska reebin maad aasin maad xabaalin adaa jiidanaya ama qayb ahaan baad jiidanaysa waxbaa khaldan waddadii guusha loo marayay inta la socdo waxbaa khaldan meel buu khalad ka jirayo dhacdhac iyo daacad darro okay waayahay markaa guys maxaan nuxurka videogu muxuu ahaa markaad rabtid inaad isbeddel ku samaysid identitygaagii aqoonsigaagii shakhsiyadeed yacni qofkaad ahaan jirto qof aan ahayn ayaad rabta inaad noqoto soo maaha aqoonsigaagii dhammaa ayaad beddelaysaa qofkaas waa inu iskaa dhinto aqoonsi cusub waa inaad samaysato shakhsi cusub waa inaad noqoto dabeecado cusub fikir cusub aragti cusubaad indho cusub wax ku eegaysid dadaal cusub oo aanad lahaan jirin waxaasoo dhan waa inaad keento meeshii saad u noqoto qof cusub oo aan ahayn kii aad ahaan jirtay waa fahamtay okay waxaan ku khatimayaa hadal aada u muhiima waxaan siri hadal khatara waa khatar meel ku qorta weliba ku dhajiya gidaarado maalin kasta eega qof kasta oy maqlayaan la hadlaya guushaadu inaad gaadho waxay ku xidhan tahay adigu marba halkaad maraysidiisaad isu arkaysid yacni aragtidaad naftaada ka qabto ayuunbay ku xidhan tahay heerkaad adduunyadana ka gaadhaysid guul waa fahamtay haddaad shakhsiyadaadu daciif tahay kalsooni darro ku hayso iska dhacdhac badan tahay balwaddu kaa adag tahay lacagta aanad hayn aqooninoo faraha ka baxdo aad musrifo tahay cuntada aanad controlna saa doonto isaga cunto naftaada controlba xilligii loo baahnay ma seexinaysid cuntadii u baahnayd ma siinaysid jimicsigii u baahnayd ma siinaysid wax kasta yacni waa bilaa control noloshaada dhan halka waa iska daayac wax kasta waa faray ka baxeen then horumarkaagu intaasunbuu ku eekaanaya kharaabkaa ma soo dhaafaysid haddaad rabto inaad adduunka kharaabka ah ka baxdo oo adduunka guushayo quruxda aad gaadho waxa weeyaan inaad
aqoonsi cusub samaysatid oo qofkii qof aan ahayn aad noqotid. tacab badan, dadaal badan, commitmentku maxaa la yidhaahdaa, yani inaad ku taagnaato waddada guusho aanad ka leexleexan, waxaasoo dhan baa lagaa raba. waa fahamtay? okay, I hope inaad ka faa'iidaysateen videogan. aad like ku dhufta haddaan idinku dhufan markii hore guys. share gareeyo, walaaladiina la share gareeya. adduunku ha hagaago, dadku ha hagaagaan, isgaarsiiya khayrka. adiga khayr baa kugu jira markaad walaalka u gudbiso hadalka ama walaasha. okay, khayrka shaqaysta, videoya gudbiya insha allah. okay, kii videogii wiigii kan ka horreeyna halkan aan idiin soo dhigaya. sawirkun farta saar, wuu kuu furmaya. okay, kaana soo daa, wax badan baad ka faa'iidaysaa insha allah. aad baan idiin salaamaya intaan videoga dambe ku kulmayno. maca asalaama.